إن شاء الله تعالى وحين قد قلي دونا سؤالها وآذو فربضان حين كجارسينه سائل كان يوحي لي يا شيخ شريعة إسلامكم حيك قبتها إن لي يسكسوا دوية ديمة أما الله ولا عليه سؤاشا وسير راعيه وحليه هاي maxay tahay xaqiiqada ku jirta in la xayeysiiyo hogaamiye diimeedka kiristaanka ama la buunbuuniyo safaradiisa saailkana wuxuu leeyahay qofka markay naftu ka baxayso jihada in loo jeediyaa ma sharci ba saailkana wuxuu leeyahay haddii ay kalifto xaaskayga been ma u sheegi karaa su-aal iyaduna ku dhow wuxuu leeyahay ruuxa dumari xaq ma u leedahay inay ninkeeda weydiiso meesha uu ku soo habsaamay waa saailku siduu usoo qoray su-aasha saailkan wuxuu leeyahay gabadhu markay dhiigga caadada leedahay sheekh qur-aanka ma sii dhigi kartaa hadday macallimo tahay oo ma sii gudbin kartaa بسم الله مصاحبة الأديان إن ديمها للصاحبية وشيكة عصرية وقال سوكر ردي هدف كلوي هاي إن باطل كان لقد حقنا لقريه أتلبسون الحق بالباطل حقي باطل كي الله يسكو احترى يوي وحي نوكسون هاي دمات تلمودك أما كتابك يهودا يا بايبل كنصارى دون باطلين قرآن كنا إلى هاي نوغا ورمي إنا يقديه محرف هين هو دقعمها لقو قرايو لقدمي ولا آخرايو أنا حتى آيات شيء يسكو تشوس سباهين كنا ودوري لحدن تشوس كنا ودوري تدبات تشوس بالقرآن أنا اسكت سباهين كشاكه كتاب كود هالكاسو مريا يجا أيا كم بابك كم مرخات فريم بين بدني كبوحده كسال الدنيا يا قرآن كأنن كريم كون حرف بدلني تشرين إن لو نحتره والله إلى لبضع سوي سمين وحيلا مت قال يا إسلام كوي سميه لكن لقول يدد كنا وادد إلهي ديمه هنا ديم السماوي ولا سوى الدشيء وإسكوا حقني ولا بك الدنيا يسهى سبع شيء كذا لو جت شرايط diinta islaamka xaqnimadeeda ayaa lagu qarinaya baadilkiina waxa lagaga dhigay inaanu baadil ahayn oo xaq yahay marka waa beenaha badane bariyahan la iib keenay ka mid tahay in laga feejignaado weeye wax la saaxiibin karana ma aha xaq iyo baadil way kala fogyihiin waynu arkaynay boobkii kaniisada iyo sheekhul asarkii afka iskula jira macnaha way isdhunkanayaan sheekhul asarkii شيخي جامعة أسر أضيق كها أسر هي مصر يشيخ الأسر كيف أفكر ليسوق لي صور كود موقنية على لبدا ديمودنا وايس كوميد لبدا وداتنا وايس كوميد قال دي إسلام كنا وايس كوميد هل كاسي كوبيا شبات مسلم لقات كذا يقوم بماش مريان لكن إلهي سبحانه وتعالى أنت أيضا بك قور رمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكى لي سكدا النبي موسى هدو شوق لهاب ولمانت وما يسورة كشان إنه الرماية مويانا إنه نبي نمشي أكتع مركي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن يراني ولا ليه التوراة وقصوا قريب النبي قو كان يا وبحنا قيب النبي التوراة بدي مك كان يستقبل يدا قرآنك ويهمد مهيمن وها دينتي هرا النسخة وحتى وقيين هلا هيو كأن تدك قاعد في أشكنا هذا وهذا في كنا وين تاوي قفكم مركا ودينته إن قبل هذا الله تشديا والصحوية أو مركا أو هذه الشر تدينته حباش على دقة سدا قبل هذا الله تشدينا أيه أيام مركا وسيد من أين قبل هذا الله تشدينا أيه هذه الرسول كان واحد صلى الله عليه وسلم مركا الله عاصي قيل قبل هذا الله تشديه مركا تنكلنا والله مت بيلين علماء لكن تمهم كأي لقمبرمان كيو عوي قفكم مركا وقبر قال دقة
in qiblada loo jeediyo markuu boko daruuri maaha laakiin waa marka qabriga la dhigo ayaa waajiba sidii quraadii quraanka akhriyay iyo dadkii ahlu cilmiga ahaa iyo shuhaadadii nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qiblada u jeedinayo si uu kala quraan badan yihiin buu qibladana uu si kala horreysiinayay xaaska been ma loo sheegi karaa ama iyadu ninka been ma u sheegi kartaa waa marmar laakiin joogto ma hadee haddii joogto laga dhigo waxay noqonaysaa inay lunto misdaaqiyadii ama kalsoonidii labada qof ka dhaxaysa oo midiba saaxiibkiisa kale beenaal uu ku ogaanaya labada qof ee isqabaana waxa u muhiimsan ay ku wada joogaan waa kalsoonida marka isagii hadday beenaale u qaadato isagiina beenalay u qaato reerkii siduu isu aaminaya xadiiskan ayaan qalad loo daliishan xadiiska isaga ah uu nabigu tilmaamay in ninka iyo gabadhu ay been isu sheegi karaan waa xaaladaha qaar waa mar isleedahay reerku wuu burburi doonaa ama wixii isku rakibnaa waa kala kici marmarkaa laga yar fakaraya mooyaane maaha joogto haddii uu soo habsaamo ma odhan been ma u sheegi karaa ama ma weydiin kartaaba iyadu waa malaha dee marka hinaasi yimaado iyo shaqooyinkii gododlaha qofka bani aadamkii siiba dee ninkii waxa loogu talagalay inuu dabadda ka soo shaqeeyo xor buu yahay hooyadiina guriga ayaa hawsheedu too ilaahay baa yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku sugma ka howlgala ammaano weyn bay haysaa ubadkii ammaanadii aqalkii intii oo dhan bay haysa isagiina dabadbaxaaba loogu talagalayba iyo inuu soo wareego oo soo shaqeeyo howlihii adkaa maamulkii madaxtinimadii mas-uuliyaddii wixii maalkii soo shaqeeyo de markaa haddii laga daba shaqeeyo kii soo shaqaynayey waa la isla dawakhayaa allahuma ilaa dee haddii uu yahay khayru cafiif midaan dhowrsoonayn oo ay ka shakisan tahay inuu qaraaf iyo xumaan sameeyo dee taasoo kale xaq waxay u leedahay inay ka hinaastay ka dhiidhiday tidhaahdo xumaantaa jooji hadday ku ogaatana dee tallaabo way ka qaadan kartaa ilaa xaaraan buu wuxuu cudurru u horseedayaa laakiin hinaasaha aynu aragna ee xaggaad martay iyo sidaad tahay iyo iyaad la kulantay arrimahaas waa waraysi mukhaabaraatiya waraysigii sirdoonka oo kale in ay la gasho gabadhu ninka maaha waa la isku wareeraya ruuxa dumarka ahi markay caadada leedahay qur-aanka ma akhriyi kartaa culimada islaamku maya bay u badan yihiin ma akhriyi karto way jiraan qayb la waa akhriyi kartaa laakiin sidaasay u badan yihiin marka iyadoo ku kalifta mooyaane intay daahir noqonayso inay iska sugtaa fiican wallahu aclam jazaaka allahu khayran ilaa kaa baalmariyo saa-iilkani wuxuu leeyahay sheekh hadday qof wax naga dhexeeyaan waxna dhex maraan haddaan waan cafiyey aan anigu afka ka idhaahdo aanan isagii u sheegin arrintaasi cafiskii ma noqonaysaa ama qof kale ma usii fari karaa su-aashan inkastoo muxaadaradiina ku jirtay wuxuu leeyahay saa-iilkani sheekh cibaadada maxaa la igaga aqbali karaa ama goormaa la odhan karaa cibaadada waa laga aqbalay saa-iilkana wuxuu leeyahay saddexaad qofka markaad soo booqato xabaalaha qofka qabriga ku jira miyuu ku ogaan karaa saa-iilkani wuxuu leeyahay qof ka shaqeeya meel rag iyo dumar aan isu bannaanayn oo maxramka isu ahayn ka shaqeeyaan oo isku dhex jiraan waxna aan ka qaban karin maxaa la gudboon waa su-aal iyaduna rag iyo dumar udhexaysa wuxuu leeyahay saa-iilkani ma u bannaan tahay ragga inay qalaan dumarka gaar ahaan kuwa uur kale labadan su-aalood way isku dhow yihiin waan israacinaya wuxuu leeyahay qofka qur-aanka dhiganaya gaar ahaan ardayday ku badan tahay ma ka boodi karaa qur-aanka badh isagoo macallinkii markaa waxa weeyaan ku khiyaameynaya laakiinse towbad ma leeyahay hadduu ka boodo arrintaas kale dhallinyarada aada u garanaya laba su-aalood baan raacinaya iyagana dhallinyarada ku saabsan su-aasha koowaad wuxuu leeyahay dhallinyarada ragga iyo dumarka ah ee baraha bulshada lagu wada xidhiiro ka wada sheekaysta arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa
su-aasha labaad wuxuu leeyahay waxaa jira rag iyo dumar israaca sawirlayaalna ka haysta dabeedna isku soo sawira magaalada markaa meelaha koonaheeda arrintaas iyadana xukunku waxay shareecadu ka qabtaa cafis marka uu qofku qof kala cafiyayo waxaad u wanaagsan weeyo dee ilaahay baa ina fara khudi lcaf waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin cafiska qaado waxaad u qiimo badan weeye cafiska ilaahayna lagu helaya subxaana wa tacaala inuu u sheegaa wanaagsan qofkaa isaga ah ee uu cafiyayo waaba laga yaabaa sida inuu wax ka tirsanaya inuu isagana ka codsada inuu cafiyo anugu waan ku cafiya adna cafi waxaad u wanaagsan weeye qofkuna haddii uu cid kale ka godobaysan yahay nafta iyo maalka iyo sharafta mid inuu meel kaga dhacay qof kale waa inuu cafis ka codsadaa intaanu fashilmin qiyaamaha ilaahay hortiisa subxaana wa tacaala waa kii muflisku ka warramayay nebigu qofka caydha ah qofka caydhii waxa weeye qof ilaahay hortegay aakhiro camallo badanna sita laakiin ummaddii ilaahay dhibay wixii ay la roorayeen baa isaga la saaraya wixii khayru sitayna iyaga loo xambaarinaya marka wuu caydhoobaya marka waa nacasnimo inaad ilaa aakhiro sugto towbad waa inaad keentaa towbaddiina waxa ku xidhan qofkaa isaga inuu kaa cafiyo wixii aad ka gashay ama ummadaba cibaadada maqbuulka hore inuu soo sheegno waa cibaadada munaafiqnimada laga ilaaliyey shareecada nebigana waafaqsan alikhlaas walitibaac labadaa waa inay leedahay siday xusaysa aayaddaa u dambaysa suuratulkahf qofka xabaasha ku jiraa wuu maqlayaa cidda soo booqatay nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam markii uu asxaabigii aasay wuxuu yidhi waxa uu maqlayaa qarca nicaal kabteennaa sanqadheeduu maqlayaa nimankii gaalada ahaa ee beder uu laayay markii uu meeshii qaliibka ahayd xorfaddii ku ururiyeyna ee uu nebigu la hadlayey ee uu cumar lahaa maxaad kala hadli waqad jayafuu iyagoo baktiya waanay jawaabayna waa idin maqlayaan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa khitaab baynu kula hadlaynaa sida dadkeennana caadigaa loo salaamo ayaa iyagana nebigu noo jiray calayhi salaatu wasalaam in loo salaamo waaya ma laga shaqayn karaa meel rag iyo dumarku isku dhex jiraan oo ay isdhex miranayaan oo mukhtalid ah oo markaa xaaraan lagu samaynayo meel macsiyo lagu samaynayo haddaad ka shaqayso adigana way ku soo gaadhaysa marka munkarkaa isaga inaad wax ka qabato inaad ka tagto labadaa midun bay noqonaysa makaanu likhtilaaq waalkhulwa meel rag iyo dumarka ay isla gooni noqonaya akhlaaqiyaadkii xun yihiinoo meel xalaal oo nadiifa raadso haddaanad munkarkaa waxba ka qaban karayn dumarka iyo ragga iyo isdhakhtarintooda raggu wuxuu dumarka dhakhtarin karaa ama daaweyn karaa dumarkuna ay daaweyn karaan ragga marka kii la jinsiga ha la waayo cudurkan isagaa daaweyntiisa haddii ruux dumar ahoo inoogu filani jirto dee dumarkeenna u geyn mayna dhakhtarka u fiirso inantii neeras tahayd hadday ku filanta oo cawro in la eego iyadoo ay ku filan tahay dictoorka maxaa lagala doonaya mararka qaarkood baa dumarku ay yaro saluugaan dumar kale inay daweeyaan oo hoos u eegaan ay dhahaan matana aniga waxii sheegaysa dictoorka weyn baan anigu u baahanay dictoorkii waa inaabay u tegaysaa dabada u faydaya marka dumarkuna iyo isa saloogi wixii waa cawro cawrada waxaa la xalaaleeyey in la eego mar daruuro ay tahay oo cid kale loo waayo ama dumarkii joogay aanay waxba ka qaban karin dumarkii neerasta ahaa ma qali karaan oo qalliinkii awooduma lahaa ruuxii dumarka ahaydna waxay kalifaysaa in laga qalo dhaawacan isaga ama laga soo saaro ilmihii dee dictoornina bay markaa kalifaysaa marka xaalata daruura waktigaa dee la waayo cid kale mooyaane qof ku filan oo dumara inta la helayo loo gudbi maayo raggii marka raggu uu operationkaasoo kale samaynayana qof aaminana waa inuu yahay maxramkeediina waa inuu joogaa su-aashan kale dhallinyarada la xidhiidha ee qur-aankii barhma ka boodi karaa iyadoo mucallinkii aan ka qarinayo inta aad ka boodday adigana way kaa boodday
waxaynu uga jeednaa adunbay kaa go-an tahay marka inaad naftaada khiyaamayso wax aada u foolxun weeye marka kalaamka ilaahay sidaa uu isugu xidhiidhsan yahay waa tawqiifiyo nabigaa laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam aayadaha saasay isugu xidhiidhsan yihiin jumlooyinku saasay isugu xidhiidhsan yihiin mararka qaarkoodna waad ku dambaabaysaa qur-aanka qayb ka mid a haddaad oo isku xidhan haddii aad ka dulboodo idan waajibka saarani waxa weye dhallinyarada in lagu rabeeyana ay tahay inaanu cilmigii uu baran lahaa iyo mucallinkii uu ka baran lahaa khiyaamaynin ila isagay ku soo noqonaysaa mushkiladan kale la xidhiidha casriganna aadka u badan taxaduth fii mawaadici tawaasul alijtimaaci in da-yartii la isku ibtileeyo wiilal iyo gabdho qaarna ay kaynta isula baxayaan qaarna ay hawada isula baxayaan oo hawadaasaa odayaashu filimkaa lama socdaane hawadan baa laga wada socdaa inantiisii halkan ay u fadhidaa inankuna halkan uu fadhiyaa wuxuu u haystaa inantu inay iska khushuucsanto gurigeeda ay ku jirto iyadii hooyaduba saasay u haysta inankuna ina wanaagsan oo goor horeba soo xarooday inuu yahay hadda maraykan buu joogaa iyo australia inanta halkan maqsinkan ku jirtaa niman bay isdaawanayaanoo sawirra la isu dirayaayo maxaan ku dhahdaa video camera baa socda live muuqaal bay ku jiraan odaygii islaantana way akrudaayaduna bahalkaasay muuqaalka ka jirta marna sawirkeeday u diraysaa marna sawirkiisa ama call dee toos ah oo is arkayaan sida labadan qof ee ag fadhiyo kale ku jiraan marka waa arrin aad iyo aad u khatar badan waalidkuna inuu ka warhayo weeye daayartana waxaynu leenahay cimrigiin ha cunina haddaad cimrigaaga cunto waa musiibo cimrigaagood cuntee waxa weeye cimrigaagood macsiyo ku qaadatay cimrigaagu haddii aad macsiyo ku qaadato baraka la-aan buu kugu dhaafay baaqigana wuu saameynayaa marka wixii xaaraanayaan lagu isticmaalay wixii macluumaad uu qofku ka faaidaysanaya ha ka faaidaysto wixii akhbaara ila lama dayn karo dadkii way ku ibtilaysayna waa wax jira laakiin wixii xaaraana ama sawiro qaawan ama macsiyo ama qof si xun loola dhaqmo intaasoo dhami cuqubay keenayaan maskaxdaa kugu madoobaanaysa indhaha kugu madoobaanaya cimrigaagaa madoobaanaya cadho allaad qaadanaysa fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu araaximiin ilaahay baa ciduu xilaalisa ugu wanaagsan oo u naxariistee ilaahay baa ku ilaalinaya waxaad ogaataa markaad goonida joogto inuu ilaahay kugu helinayo alaa yaclamu man khalaq wahuwa alatiifu alkhabiir wuu ogyahay addoonkaa ilaahay u abuuray waanu u jeedaa waanu eegayaa wa caynullaahi naadiratun ilayna marka cid la iska eega ilaahay baa u wanaagsan haddaan cidi ku arkayn ilaahay baa ku arkaya xaaraanta ka ilaali xubnaha alam najcal lahu caynayni walisaanan washafatayni wahadaynaahu najdayn wuu inoo mana sheeganaya ilaahay miyaanaan qofkii u samayn baa ilaahay uhi laba indhood iyo carab iyo laba dibnood uu dariiqa ku arkayo markaa indhihii iyo carabkii iyo codkii wax xun haddaad ku isticmaasho waxa soo dhaqsan kara inuu ilaahay kaaga rido cudur dhakhaatiirtu daweyn kari waayeen axadu aclaami salaf saalixiintii mid ka midoo gaboobay baa indhihiisii iyo ilkihiisii way wada fiiqan yihin waa lala yaaba waxaa lay ka war wuxuu ihi xafidnahaa siqaaran faxafidaha allaahu kibaaran xubnaha arkaysaan annagoo yaryar baan xaaraanta ka ilaalinayoo annagoo boqol jira baa ilaahay noo ilaaliyey indhihii iyo ilkihiiba marka cimrigiina ha cunina ha cimri degdegina cadho allana ha kasbanina xaaraanta ka ilaaliya baynu leenahay dadka ama baabuurta bannaanka isula baxaya ama hawada isula baxaya oo da-yartana aynu tababarno diinta iyo tarbiyada iyo aynu aada ugula dadaalno aqoontii maadiga ahayd unbaa maanta waalidiintii iyo mas-uuliyiintii ay lacag ku bixinayaan ay ku dadaalayaan qofka haddaad aqoonta maadigoo qura kula dadaashood ilaahayna bari weydo diintana bari weydo way isku waalan doontaan marka dambe lacagtaaduna way dhammaan isaguna wuu kaa farabixi doonaa qofkaas ayaamo dhoweyto dee baraha bulshada waxaa ku arkayseen inan siday aqalkooda u joogtay krista noqotayba internetkaasunbay ka wada xidhiidhayeen dadkiibaa ku xidhay boobab iyo kaniisad norway jooga halkiibaa lagaga qaaday heshiiskii gaalnimada islaamkiiba waa laga saarayba goor dambey waalidkeedii ogaadeen iyadoo la dhoofinayaba oo lasii wadaba markaa wax badan baa meesha ka jire dee dushiina yaan lagu shixinoo lagu ciyaarayna anteenooyinka taagoo soo jeedsada wallahu aclam saa-iilkani wuxuu leeyahay sheekh casharka ma lagu maydhan karaa cashar marka laguu soo dhigo ma lagu maydhan karaa casharka laakiinse in la dhigtaa nebiga ma ka sugan yahay sala allahu calayhi wasalam
saa-iilkani wuxuu leeyahay nin baan dayn ku lahaa 44 kuna wadna wuu dhintay dadkii ehelkiisa ahaa markaan u tegay waxay idhahdeen 20 kun ayaa meesha kuugu qornaa marka agoontuna arrin saa u dhigan agoontuna way ila ogaayeen maxay arrintaa diintu ka qabtaa saa-iilkani wuxuu leeyahay waa 2 su-aalood isku dhow maxaa siyaadiya sheekh qur-aanka habka aan ku baran karo ama jacaylkiisa inaan jeclaado qur-aanka naftayda waxaan uga baqanayaa buuri ninkani istusnimo iyo in cibaadadii marka waxa weeyaan aan wax kale ku daro iyadana maxaan iskaga ilaalin karaa su-aashani waxay la xidhiidhaa dhalinyarada wuxuu leeyahay waxaa jira dhalinyarada in lagu ibtileeyey waa siduu hadalka u dhigay inay isu ekaysiiyaan dhalinyarada kale ama gaalada xagga timaha labiska qaarkoodna ay xidhaan kuulo magacaantoodu ku qoran yihiin ay gacmaha ku xidhaan arrintaa diintu maxay ka qabta saa-iilkani wuxuu leeyahay waxaan habeen baan seexday dabeedna waan isku jinaabooday waan tukaday aniga oon maydhanin oon ilaaway salaadaa ma soo celinaya su-aalkani wuxuu leeyahay su-aal ku dhow arrintii uu sheekhu muxaadarada ka galay khushuucda salaada sidee baan sheekhu ku heli karaa indhahase ma isku qaban karaa si aan khushuuc u helo saa-iilkani wuxuu leeyahay markaad meydka ku tukanayso ee takbiirihii hore ee meydka 4 takbiirood ama 2 ku dhaafaan iyo wax la mida ma intii imaamku ku joojiyo ma ku joojinaya mise anuguna waan sii wadaya inta aan la qaadin quraanka marka la akhriyo ee la dhameeyo sadaqa Allahu al-azim ma la oran karaa casharka ma la dhigi karaayo biyo inta quraan lagu akhriyo qofku ma cabi karaa ama ma ku maydhan karaa culimadu waxay u badan yihiin salafka qaarkood waa sameeyeen maadaama quraankii ilaahay caafimaad ku sheegay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa'un linnaas quraankii caafimaad uu dadka u yahay baa ilaahay marka caafimaadkii jirka iyo kii qalbiga baa noqonaya waxaa kaloo jira xadiid saxiixa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa inuu inoo sheegay qofku markay meeli xanuunayso inuu farta ciidda saaro meeshii saaro biturbati ardina min riiqi bacdina yushfaa bihi saqiimuna candhuufta qaarkayo iyo ciidda dhulka yaga ayaa ilaahay ku caafimaadinaya kaa yaga buka marka maadaam candhuufta uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu qofku marka uu wax ku akhriyayo qur-aanka ku akhriyayo biyaha in wax yar uu gaarsiiyo biriiqi bacdina baa xadiidkaa saxiixa ku sugan inahaasay daliishadaan marka qofku wuu ku maydhan karaa laakiin waa inuu meel nijaasa ka ilaaliya suuligii iyo xamaamkii iyo meeshii quriga tashti ha ku maydho beerta ha ku shubo culimada cilaajku iyo ruqyada iyo had iyo jeer cidda ruuxda daweysaana saasay maaragta ayay tilmaamo waana sax weeye in laga ilaaliyo qur-aanka wixii ihaana su-aasha labaad ee ahayd qof baan dayn ku lahaa bar baa la idafiray maxay xukunkeedu noqonayaa 2 arrimood bay mid ku taallaa inaad iska cafido waad heli kartaa akoonka aakhire ku sii taallaa waxaagu dee xerada adduunyada iyo xerada aakhire midub kugu jiraa ma lumaan xoolo midda labaadna waxa weyn inaad cadaysato garsoorka tagto oo dacwadaad bilowdo aad markaa isku daydo inaad ama cadaysato haddaad cadayn kari weydana ay ku dhaartaan ama aad ku dhaarato labadaa mid un wey qur-aanka maxay jeclaysiinaya waxa ku jeclaysiinaya dalka wanaagsan iyo dadka wanaagsan iyo diinta wanaagsan dad wanaagsan in la joogto qur-aankii jecel oo ku cibaadaysanaya baranaya
iyo dal wanaagsan inaad joogto oo qur-aanka laga cisaynayo iyo diin wanaagsan inaad leedahay in uga jeedna dhaqan fiican inaad yeelato cibaadaysato oo ruuxdaada kor u qaado mar kasta oo qofku cibaadada wanaajiyo ruuxda ayaa quud iyo sahay hesha marka waxa u macaanaada qur-aanka iyo dikriga ayaa u macaanaada laakiin haddii cibaadadaada hoos u dhacdo ama aanad cibaadaysanaynin ruuxdaadii baa baaba'ayso cibaadada u qaraadhanaysa ilaahasaynu baraarujin lahayn su-aasha kale ahayd daayartii waxay daba carareen shisheeyaha maxaa ugu wacan waa lisaraqati alcuquul caqligoodii baa la xaday in xoolaha laynaga xado iyo dunyadana waxa ka dhib badan in caqliga la xado haddii cuquusha caqliga dadka la xado ka madaxda la xado ka dumarka la xado ka ciyaalka la xado xatooyada cuquushu oo waxa ugu musiibo badan weeye dadku iyagoo dalkooda iska jooga ayay yihiin dad sagagariin oo siloona oo dad waalana waddan iska dhex jooga umay noqonayaan meel kale ku faruur xidhan oo meel kale laydh looga shidayo oo dee nooc kale ah ayay noqonayaan idan waa ta keentay carruurtii iyagoon meel kaleba teginba inay shisheeye hadalkoodii iyo dhaqankoodii iyo waxaasoo dhan taqliidaan ay daba socdaan waxaa keenayana jacaylka oo cidda aada jeceshahay had iyo jeer sidooda aad u hadashaayo sidooda aad iska dhigtaa haddaad nebi maxamed jeceshahay sidiisaad u cibaadaysan sidiisaad qur-aanka u akhriyi sidiisaad u labisan haddaad michael jackson jeceshahayna sidiisiibaad sanka u qali doontaa oo sanka usoo yuubi ood maskaxda usoo yuubi ood hadalka usoo yuubi markaa kolba qofku cidda uu jecel yahay waa kaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digaya maxabada jacaylka qalloocday almaru maca man axaba qofku wuxuu wehelinayaa adduun iyo aakhiraba cidduu jecel yahay marka cidduu jecel yahay waa inu ka fiirsadaa marka dadka aynu rabayno diinta kula dadaalo dhaqanka wanaagsan kula dadaalo aynu maalgelinno ummadda maskaxdooda iyo macrifadooda iyo ruuxdooda waxay dadkan u baahan yihiin in khayrka lagu maalgeliyo oo tacab la geliyo ila qofku waanu halaabi karaa waanu hanuuni karaa laakiin waa in hawla qabtaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyat waxbaynu raacnay waa inaanu ciddii aynu raacnay si wanaagsan mas-uuliyadoodii uga soo baxnaa hidaayadana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala salaatuljanaaza haddii lagaala horeeyo dee intaad ka soo gaadhayna waad la iman intii kaa tagtayna waad la iman haddii laba ragcadood laba allahu akbarood aad ku soo gaadhay allahu akbartaada hore dee waxaad ku xigsiin doontaa faatixadii ta ku xigtana salliga nebiga ta ku xigta ducada sidii ay ahayd baad u tartiibin doonta haddaanad garanayna dee culimada ka baro laakiin 4 jeer ba allahu akbar la odhan jiray haddii aad laba ku soo gaadho markuu imaamku ka baxa aad ka baxdo dee waa salaadii oo laba aad kaga baxday 4 tahayd oo kale salaadii oo bar goosatay weeye imaamku barkood 4 ragcadood dadka tukinayo salaadu 4 tahay ee laba soo gaadho dee labada kalena waad raacisaa markuu ka baxo tanna waa sidii oo kale laakiin barashay u baahan tahay wax badanna maaha qofku marka uu tukanayo inuu khushuuca oo khushuuc la yimaadaa waa wax ilaahay u dhaweeya waana darajo la gaadho ilaahayna mu'miniintu ku amaanay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun mu'miniin waxaa la yidhaha kuwa markay salaada ku jiraan khushuuc leh waa qalbigooda ilaahay u soo jeediso si kale haddii loo dhigo marka salaada ku jirto waa adigoon xawilnayn mobayl baa xawilan soomaad arag adigoon xawilnayn weeye haddaad xawilanta ilaahayna iska hor taagan tahay arrin maaha taas waa inaad ilaahay u soo jeesataa subxaana wa tacaala taa qudhigeedana waa la bartaa nafta lagu rabeeyaa meesheeda dadkeedana waa laga faa'idaystaa iyo saaxiibada wanaagsan indhaha isku qabashadooda iyo kala qaadistooda culimada qaar waxay idhaahdaan inaad indhaha kala qaado ayaa wanaagsan halkaa lagu sujuudayana aad eegto waa ilaahay baad hor taagantay qaarkoodna waxay idhahaan qofku inuu indhaha isku qabta ayaa wanaagsan khushuucda u dhowda waa intoo wax kale aad eegtaaye laakiin marka hadiga nabiga la eega calayhi salaatu wasalaam waa inuu qofku indhaha kala qaadaa makaana sujuud meeshuu ku sujuudayana u eegaa sadaqa allahu alcadiim ma la odhan karaa markuu rasuulku akhriyay qur-aanka sala allahu calayhi wasalam kamay soo aroorin inuu odhan jiro axaadiidta saxiixa kuma hayno
culimada qaarkoodna waxay leeyihiin dee qur-aankaba ilaahay uu ku sheegay inuu run sheegee kollaybana ilaahay beeni way ka fogto waa ka nasahan yahay hadduu yidhaahdana dhib ma leh oo bidco laguma sheegi karo qolana waxay leedahay mar haddii aanay qiradii nebiga la soconin ha laga daayo marka waxaynu odhan lahayn wax la isku qabsado lagu dagaalamo maahee ka yidhaahdana dhib male ka tagaana dhib male wallahu aclam su-aalahaasaan ugu dambaysiinayaa masaa'ilkani wuxuu leeyahay qofka balwadda cuna qaadka iyo sigaarka iyo kuyaabaha kaleba maxaad kula talin lahayd haddiise ilaahay dartii aada uga waaniso oo ballan kuu qaado inuu ka tegayo haddana uu ku noqdo ilaahay dartii ma uga tegi karaa qofka qofka shakigu ku badan yahay markuu salaada gelayo ama waswaas maxaad sheekh kula talin lahayd masaa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh haddii timahaygu ay caddaadaan xinna balaaga ma marin karaa ma ku madoobeyn karaa wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh dumarka haddii iyagoo xijaaban jirkooda asturan yahay muuqaallo wacyigelina ma ka qayb qaadan karaan oo ma nashirin karaan intaasaan kusoo gabagabaynaya balwaddu casrigan aynu joogno waa balaayada u weyne waddankeena ka jirta shaadka iyo sigaarka iyo wax kaloo lagu darayba imaka oo marka balwadda la dayn waayo dee noocyo yeelanaysa khamrigii baa jiro daroogadii baa jirto way sii biirayaan marka caafimaadkeennii u badnaa akhlaaqdeennii u badnayd dhaqaalaheennii u badnaa wixii o dhan halkaasay ku baxeen waajibka ummaddan saarani waxa weye in loo howlgalo sidii loo joojin lahaa dadka looga wacyigelin lahaa diintu waxay ka qabto loogu sheegi lahaa waxaani wuxuu ku dambaynaya loogu sheegi lahaa arrintaasi waa waajib weyn weeye haddii la fudaydsadana waxaa dhici kara waxaan cidhibtiisa la mahadinayn ummadaha marka la doonayo in wadamo laga riixo ama laga qabsado balwaddaa lagu dhex baahaya taariikhdii jayne akhri iyo weerarka qarbigu ku sameeyeen ama reer galbeedku balwaddaasaa lagu weeraray daroogadaasaa lagu sii daayay nimankii austraaliya deganaan jiray iyo qaaradda america la ydhaa ummadihii deganaan jiray balwaddaasunbaa loo qaybiyo ummado shaya dalka kala wareegay marka haddii dadka caqliga laga qaato si dhib yar baa loo jahayn karaa loo maamuli karaa maantana waxaynu gaadhnay in dusheenna la isku haystaba annagaa kuwan iskale iyo annagaa iskale soo maydaan arag wadamada jaarka qolo waliba waxay dhahaan qaybtan annagaa leh oo intan annagaa ka iibinayna jaadka annagaa ka iibinaynaaba la isku haystaaba adigii baa la isku ka haysta idan waxba yaynaan eegin waxa yara ka soo baxaye dadka soo waaridaana ilaahay ha uga toobad keena ilaahay faraj khayr qabuu siin doonaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib meel aanu filayn buu ilaahay ka arsaaqi doonaa hadduu maanta qofkaa ka baac mushtaraynaya waxaa xaaraanta intuu alkaa iska dhigo uu lacagtiisana danaha guud geliyo wadooyinka ceelasha iskuullada u geliyo ku shubo wax xalaala amaahdo oo uu idhaahdo waxay amaahaystaan xoolo xalaala oo halkaa uu faa'iidadiisa ka doono waxa hubaala intuu halkaa ka helaya in ka badan oo adduun iyo aakhiraba caafimaad qabta inuu heli doono marka taasina caynkaa weeye dhibka runtii maanta inaga soo gaadhaya dhinacyo badanna halkaasuu ka imanaya marka inaynu ilaahay u toobad keenno nafteennana raajicino waan arkayaa marar badan walaalaha ama dadka muslimiinta ee balwadaha isticmaala ama iibiyaa qofkii wuu damqanaya wuu diiqadoonaya naftiisa qofna been uma sheego uu ku imanaya wax ku odhanaya xajkii baan doonaya inaan tago sadaqaan doonaya inaan bixiyo laakiin waxay gidi halkaasaan ka shaqeeyaa ama jaad baan ka shaqeeya ama sigaare maxay kula tahay ma ku ansaxayaa yaa akhi adigu waxaad ka hadlaysaa sadaqaad ka hadlaysaa xaj baad ka hadlaysaae ma cuntaayo caruurta ma siisaa haa waan cunaa caruurtana waa siiyaa dee haddaba taasaaba kasii daranba cibaadadii iyo cunadii waa isku mid haddaad cunayso barorta cunada ka jooji cibaadadii iyo cunadii waa isku mid marka taasaynu xaggii mowqifkii sharciga ahaana waxaasi waa inaanu bannaanayn in la iska daayo ilaahay looga toobad keenana waa waajib
qofka intuu ka taga ku noqdana odhan mayna iska sii wade waxaan leenahay haddana ka soo noqo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoonka mar walba ilaahay u toobad keenaba uu ku farxaya uu ku farxaya uu ku farxaya marka inuu quusto maaha waa inuu soo noqdo waswaasku waa cudurka cibaadada waa waswaaska shaydaanku hadduu kula helo irbadda waswaaska cibaadadaadu khalkhal bay galaysa waxaan garanayaa nin masaajidada hargeysa ku tukan jiro sheekh ahaa ilaa 2 ragcadood la tukado salaada muu xidhan jirin siduu u leeyahay allahu akbar usalli 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 allahu akbar siduu leeyahay geerkuba uu geli waayaaba 2 ragcadood marka la marayo ayuu speed ku qaadanayaa inta ka horeysa speedkiisu ma galayo labada hareerihiisuna waxay tukadeen garan maayaan ila usalli baa dhagaha kaga socotee marka uu ku yiraahdo allahu akbar maad oranin id maalinta hore ku celiso maalinta labaad wuxuu isku dayay inuu saddex kaaga dhowraahdo maad maqlay maad oran allahu akbar ba'da saad shidee khafiifi saas uu wadaya marka waa inaad tiraahdo iska daamay ana maqlayo way saxnayde ayaad qalbiga ka oranaysa inta markaad ugu jawaabto waad ka soconaysa marka waswaaska in laga ilaaliyo weeye cibaadada si aan cibaadada cudur u qaadin xinaha 3 qaybood weeye midi waa hurdi oo noocan huruuda weeye midna waa ahmar oo nooca dhiiga u eg weeye midna waxa weeye bunni ama midabka dark brownka ay nidhaahno 3 qaybood waa la marsan karaa laakiin ka madow lama marsan karo nabigu wuxuu marsaday ama dhiiriyayba qowl iyo ficil bay ku sugnaatay al-hinaa wal katam xinaha iyo katamkuna waa madow xinuhuna waa casaan labadaas uu isku daraya marka waxa isla imanaya midabka la yiraahdo bunniga ama brownka ay isla imanaya laakiin ka madow cirada inaan la marinaynin uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waanu ka digay cirada badala oo madowga ka daaya وهذا ما أقوله وأستغفر الله دنبجنا الله ضاف كوارد كنا الله ضاف عبادة الله ينجا أقبل عمل كنا الله صوبيه بدي نشف عقاده إلى هاي نجا أقبل الله كرجو وارد كنا الله ونحرست إننا الله ينجا ضمان حرست دلك يدك الدنيا ده بقى الله ينو بركة بلاوي كنا الله ينجا دوام شركة عدو جاي الشيء أنا الله ينجا بدبادي مسلم كمير وتشوجا بالنصر جيس إلى هاي السيو نصر جيس إلى هاي السيو وش يبدبادي يعسي كنا الله السيو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان رب